kulantu wacan wanaagsan saaxiibada aan ku saaxiibnay channelkeena ee gaarka gundhiga wararka habeen wanaagsan meel kasta oo dunida aad ka joogtaan waa habeenimo axad ah taariikhdan ay ku beegantahay 29 bisha 9 sanadka 2019 caawa axadan saaxiibayaal wararkeena kuwa ugu waaweyn waxa kamid ah مسؤولين كتير maamulka Jubbaland ayaa maanta lagu xanibay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kuwaas oo damacsanay in Muqdisho ay ka dhoofaan dawladda ayaa si bareer ah u hor istaagtay xubnihii maanta ka dhoofi lahaa garoonka shakhsiyaadka garoonka lagu celiyay ay inta gudbin doonaa waxa kale oo qodobadana ku jira gudoomiye Imaan Cadow Kaarshe oo aad ugu dhawaa madaxweynaha Jubbaland ahna gudoomiyaha degmada Garbaharey ayaa asna maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xog gaar ah kaga haya al-shabaab waxay shaaciyeen magacay waliba qabiilka ninkii fuliyay weerarkii ceel saliin ee ka dhacay Shabeellaha Hoose waa imisa askarta halkaas ku dhimatay iyo kuwa al-shabaab ee qarxiyada geystay ina xog gaar ah kaga haya waxa kale oo saaxiibil wararkeena ku jira daawad doontaan gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu keenay qorshe uu ku badbaadinayo nafsadiisa waa tii qorshahaasi ina qayb ay ka tahay waxa kale oo wararkeena caawad ku daawad doontaan su'aalo ka dhashay sida Kenya ay ku galay dawladda Soomaaliya hore ay ku tilmaamtay inuu yahay madaxii amniyaadka ee al-shabaab qodobadaas kuba kale ayaa saaxiibil wararkeena caawad ku daawad doontaan u diyaar garooba waxa soo hormari doona warbixinta la xiriirta al-shabaab uu shaaciyay magaca iyo waliba qabiilka ninkii fuliyay weerarkii ceel saliini kooxda al-shabaab ee ka dagaalantay gudaha Soomaaliya gaar ahaan wadanka Gees wadamada Geeska Afrika Soomaaliya ayaa waxay soo bandhigeen magaca iyo waliba baashu ka soo jeeday ninkii fuliyay weerarkii kooxdu ay dhawaan ay ku qaadeen saldhig ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaanka ceel saliini warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab Beliirada Andalus ayaa faafisay wareysi laga duubay ninkii weerarka ama isqarxinta ku daafuray weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaanka ceel saliini wareysigan oo ahaa mid aad u dheer markaas uu kaga hadlayay dagaalka kana hadlay xaaladaha uu soo maray inta uu ka tirsanaa ururka al-shabaab iyo waliba dardaaran u jeediyay xubnaha kale ee saaxiibadiisa ay ku haraya ururka al-shabaab dadka ka dambeeyay ayuu sheegay in magaciisa uu u ahaado Abshir Yusuf Ali oo al-shabaab dhaxaysiina lagu yaqaan Salaaxuddin in ay ku daydaan wadada uu maray waxa uu sheegay inuu ka soo jeedo beesha shanaad ee beesha shanta caleemood sidoo kale waxa uu xusay inuu ku dhashay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose kooxda al-shabaab ayaa horey u soo bandhigtay sawirada dagaalyahanadii ku qaaday weerarka ceel saliini waxaana sheegay inay ku dileen in ka badan 45 askarta dawladda ah dawladda Soomaaliya ayaa iyadana sheegtay in ay iska difaaceen weerarka isla markaana ay tiro kamid al-shabaab ay ku dileen al-shabaab ayaa marar badan Shabeellaha Hoose waxay ka geystaan weerarada tooska ah iyo waliba kuwa qarxiyada ku bilaabanaya Abshir Yusuf Ali oo al-shabaab dhaxaysa lagu yaqaan Salaaxuddin ayaa shakhsigii koowaad albaabka isku qarxiyay cod laga duuban warbaahinta al-shabaab ay soo bandhigeen waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay isqarxinta sidoo kalena al-shabaab waqti dhow ku jiray uu sugayay fursad noocan oo kale isku qarxiyo sida codkii laga duubay warbaahinta al-shabaab ay baahiyeen ku jirtay al-shabaab ayaa sidaan oo kale tiro dhowr jeer hore waxay weerar toos ay ku wadadbanba ay ku qaadeen goobaha ciidanka dawladdu ay ku sugan yihiin ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo waliba caasimadda Soomaaliya مسؤولين maanta lagu xanibay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaan eegaynaa oo Jubbaland ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si laba jibaartay cadaadiska ay ku hayso maamulka Jubbaland waxaana garoonka diyaaradaha maanta magaalada si lagu xanibay agaasimayaal ka tirsan maamulkaasi sida janaalkiina gundhiga wararka uu xaqiijiyay xubno ka tirsan garoonka diyaaradaha aadan cadde waxa galabta garoonka lagu xayray agaasimayaasha cadaaladda garsoorka waxbarashada iyo waliba dhalinyarada iyo isboortiga ee maamulka Jubbaland agaasimayaashan oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa doonayay inay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo balse sidaan xogta ku helnay waxaa la sheegay inaysan aadi karin Kismaayo diyaaradii ay raaci lahayn agaasimayaasha ayaa galabta ka tagtay waxaana si cad loo sheegay inaysan u safri karin magaalada Kismaayo waxaana arintan qayb ka noqon doonta cadaadiska lagu hayo maamulka Jubbaland ee Kismaayo kaas oo qabsaday doorasho aysan raali ka ahayn dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya cadaadiskan
lagu hayo maamulka Jubbaland ayaa sii badanaya tan iyo markii 31 bishii Agoosto 2019 garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu xiray wasiirka amniga ee maamulkaasi Jubbaland Cabdirashiid Janan kaas oo lagu eedeeyay inuu galay dambiyo dagaal oo dhanka bini'aadanimada. dhawaan ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay joojisay dhammaan duulimaadyadii tagi jiray magaalada Kismaayo inkastoo shalay dib loo fasaxay waxaana taasi ay kasii horeysay xayiraad la saaray diyaaradihii tooska ah waada jiray Kismaayo laguna qasbay inay soo maraan caasimadda. Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay ku tumanayaan sharciga isla markaana ay si qaldan u adeegsanayaan awoodda dowladnimo waxaana sheegay inuu qaali doono tallaabooyin culus haddii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka jooji weydo waxay hadda ay sameynayso. isla Muqdisho dadka lagu xiray waxa ku jira shakhsi saaxiib dhow la ah gudoomiyaha waa madaxweynaha Jubbaland waana gudoomiyaha degmada Garbaharey ee gobolkaasi Gadow. warar hadda soo gaaraya garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaas lagu hayo gudoomiyaha degmada Garbaharey ee gobolka Gadow Imaan Cadow Kaarshe sida janaalkana gudniga wararka ay xaqiijin ilo kala duwan oo ku sugan garoonka. Imaan Cadow Kaarshe waxa laga reebay diyaarad u socotay magaalada Garbaharey oo ka raaci lahaa waxaana u yimid caasimadda arrimo la xiriira caafimaadkiisa iyo in la siiyo warqado ku qoran ama warqado ku saabsan arrimaha caafimaadkiisa iyo waliba qodobo kale. wararkan waxay sheegayaan in Imaan Cadow hadda lagu hayo laguna wareejiyo saldhigga Manacadda halka lagu hayo iyo goobta uu ku xiran yahay intaba. Imaan Cadow Kaarshe ayaa kamid ah xubnaha aadka ugu dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dowladdu dagaal siyaasadeed aad u xooggan kula jira waxaana aad u badan tahay in tani qayb ka tahay dagaalka lagu hayo maamulkaasi. dowladda Soomaaliya ee 31 Agoosto waxay garoonka diyaaradaha Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga Jubbaland kaas oo magaalada Muqdisho uu soo gaaray kadibna ciidanka nabad sugidda gaar ahaan NISA ay xireen waxaana la sheegay inuu ku jiro xabsi ku yaala xarunta nabad sugidda Soomaaliya ee NISA. go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku qasabtay dhammaan duulimaadyadii tagi jiray iyo kuwa ka soo baxa Kismaayo ayaa inay soo maraan magaalada Muqdisho ayaa shalay dowladdu ay sheegtay waa war ka soo baxay xalay goordon bay sheegtay dowladdu in guud ahaan la yareeyay xanibaadii saarneyd maamulkaasi Jubbaland. su'aalo badan ayaa ka dhashay qaabka uu u galay wadankaasi Kenya waa xagjir hore oo dowladda Soomaaliya sheegtay inuu madaxii amniyaadka al-shabaab kaas oo Muqdisho ku xirnaa aan eega warbixintan. su'aalo kala duwan ayaa ka dhashay sawirka nin ay Kenya ku soo bandhigtay ku sheegtay in magaciisa la yiraahdo Cabdiwaaxid Cabdi Khaliif kaas oo loo yaqaano Ciise Tarabuun oo kaas oo bishii June sanadkii 2017 lagu qabtay howlgal ciidanka ammaanka ay ka sameeyeen suuqa Bakaaraha. wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Dacaale oo shir jireed xilligaas qabtay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen madaxii amniyaadka al-shabaab kaas oo magaciisa lagu soo koobay Cabdiwaaxid Khaliif oo loo yaqaan Ciise Tarabuun. waxa uu sheegay inuu ka dambeeyay dilal ka dhacay magaalada Muqdisho oo bixiyay fasaxyada ugu dambeeyay ee shakhsiyaadka la dilayo amarkiisana lagu dili jiray. hasaatee 2 sano kadib waxa lagu soo baraarugay qoraal booliiska Kenya ay ku shaaciyeen bartooda Twitterka oo ay ku baadigoobayaan ama dadweynaha kaga codsanaya in booliisku ay ku soo wargeliyaan cidii aragtay Ciise Tarabuun oo gudaha Kenya soo galay 24 bishan. arrintan ayaa durba dhalisay su'aalo kala duwan oo hareeyay baraha bulshada qaabka ay u suurto gashay in ninkan markii horeba dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay inuu yahay sarkaal sare oo madaxii amniyaadka al-shabaab u qaabilsanay Muqdisho lagu hayay. sidoo kale wixii ka dambeeyay June 27 2017 ma jirin warqad dambe oo ka soo baxday dowladda federaalka ee ku saabsan meel lagu maxkamadeeyay Ciise Tarabuun oo dambigiisa lagu qaaday iyo waliba sida loo sii daayay iyo faahfaahin inta ka badan aan dowladda laga haynin. si kastaba ha ahaatee haddii ay dhab noqoto ninkan ay raadinayso Kenya inuu yahay ninkii dowladda federaalka gacanta ku soo dhigtay 2 sano kadib ka hor waxaa su'aalo ka iman doonaan sida ay ku suurto gashay siideynta ninkan iyo inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. waana su'aalo ay dad badan isweydiinayaan dowladda federaalka Soomaaliya laga sugayo inay ka bixiso jawaabo dadka ay ku qancin karaan. ma jirto wax wara dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay qusaya arrintan ee ku saabsan shakhsigan dowladda Soomaaliya 2 sano ka hor ay sheegtay inuu ahaa madaxii amniyaadka al-shabaab hadda Kenya ay soo bandhigtay.
warka ugu horeeya ee ama warbixinta ugu horeysa dowladda Soomaaliya ka soo baxdayna saaxiibayaal oo arinta kaga hadashan isla channelkan ee gundhiga wararka ayaa kugu soo gudbin doonaa daawadaashana sharafta leh guud ahaan wararkii ugu weynaa caawana saaxiibayaal halka ayaan kusoo gabagabeynayaa warkan kan xiga saaxiibayaal intaan ku kulmin nabadgelyo asaasha daawada xasuusnow mar walba channelkeena tira subscribe gambaleelkana taabato si ay mar walba kugu soo dhacaan wararka waliba warbixinada gaarka halkan aan soo gelina